بسم الله الرحمن الرحيم xaruntan waa xaruntii degmada waxaa la dhisay xilli aad u horeeyay dayactir badan ma ayeen helin kadib markii qaybtaani deeqi weyday ayaa waxaa la sameeyay qayb dambe oo hadda qaybtaas waxaa ku shaqeeya waaxda dakhliga dabagalka iyo maxaa la yiraahdaa mashaariicdan World Bank aan la wadno shaqaalaha ka shaqeeya sidaa darteed waxaan go'aansanay in degmada dhismo cusub loo helo waxaan barnaynay labadii dhinac dadku ay ka deganaayeen kadibna halkaana waxaan rabnaa inaan dhismo ka abuurno dhismahaas waxaan ugu talagalnay naqshadiisa horaan u shaacinay naqshad qurux badan oo wanaagsan laakiin waxaanu hadba dhisanaynaa inta hadba aan wadno naqshada waxay dhismo 4 dabaq iyo 3 dabaq oo 2 milyan oo dollar ku kacaya weeye laakiin xilligan waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inaan dhisno sanadka kan qayb kamid ah naqshadaas oo ku filan shaqada loo baahan yahay hadii rabbiin marka waxay noqon doontaa guri 3 garab leh garab dhinaca bariga xiga garab dhinaca galbeedka xiga iyo qaybtan dhexe oo dib habeyn lagu sameeynayo oo ayadana la duminayo dib loo dhisayo waxaan rajaynaynaa sanadkan qaybta hore inoo dhamaato sanadaha dambana aan qaybaha xiga hadii rabbiin ma dhamaystirno. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.